kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan Bulsho Sports TV markan waxaad ku soo dhawaataan wararka ciyaaraha qodobada ayna waxa kamid ah Napoli ayaa qandaraas cusub siinaysa Lorenzo Insigne. Arsenal ayaa rajo ka qabta dalabka ay ka gudbeen Ben White. Frank ayaa ku dhow ku biirista Man United. Juventus oo loo soo diiday dalabka ay ka gudbisay Locatelli. intaas waxay qodobadii warkadana ku soo dhawaada sabab faahfaahsan. Napoli ayaa qandaraas cusub siinaysa Lorenzo Insigne. kooxda Napoli ayaa si weyn u sugaysa soo laabashada Lorenzo Insigne isagoo laacibkan uu maalmahan ku jira waayihiisa fasaxeed si ay markaa ugala hadlaan heshiis cusub. Mustaqbalka xidigan reer Talyaani kooxdiisa Napoli waxa uu kaga egyahay xilli ciyaareedka dambe. Corriere dello Sport ayaa shaacisay in kooxda ka ciyaarta horyaalka Talyaaniga ay rajaynayso inay ku qanciso inuu waqtigan u dheereeyo kooxdiisa Napoli. balse kooxda Napoli ayaa u baahan xidigan inuu aqbalo mushaarka ka hooseeya kan uu xilligan kooxda ka qaato, laakiin Lorenzo Insigne oo dhankiisa doonaya inuu la kordhiyo mushaarka uu qaato kooxda waqtigan. Arsenal ayaa rajo ka qabta dalabka ay ka gudbiyeen Ben White. Warbixintaasi waxaa eegaysaa Qamar Maxamed Cumar. maamulka kooxda Arsenal ayaa ku sii dhawaanaysa qabashada Ben White kadib markii ay dalab ka aqbashay kooxda Brighton oo ku aadan Ben White. wadahadaladii Jimcaha dhacay ayaa laga aqbalay dalab dhan 50 milyan oo gani iyadoo Arsenal xilligan la siiyay fasax ay ku dhameystiri karto heshiiska ciyaaryahanka heerka caalamiga ee dalka England Ben White. Arsenal ayaa mar sii horeysay u muujisay Brighton inay diyaar u tahay inay la kulanto qiimo dhan 50 milyan oo gani. maalintii Jimcaha ayaa la gaaray heshiis waxa u dhaxeeyo kooxahan iyadoo Arsenal ay haatan awood u leedahay inay dhameystirto heshiiska shakhsiga ah ee ciyaaryahanka ka hor inta uusan u dhaqaaqin waqooyiga London. Frank ayaa ku dhow ku biirista Man United. 32 jirkan ayaa xilli ciyaareedka hore amaah ku qaatay kooxda ka dhisan waqooyiga London, laakiin waxa uu muuqdaa inuu sii joogi doono kooxda Real Madrid xilli ciyaareedka cusub ee 2021-2022. maamulaha kooxda Tottenham ee Nuno Espirito ayaa sii xoojiyay Gareth Bale uusan ku soo laaban doonin kooxda. Gareth Bale ayaa dib ugu soo laabtay kooxdiisa Real Madrid wuxuuna isku diyaarinayaa inuu la shaqeeyo maamulaha dhawaan kooxda loo magacaabay ee Carlo Ancelotti. xidiga heerka caalamiga ee dalka Wales ayaa ku soo biloobay 10 kamid ah 20 kulan oo uu ku soo muuqday horyaalka Premier League isagoo u dhaliyay Tottenham 11 gool. Juventus oo loo soo diiday dalabka ay ka gudbisay Locatelli. qodobkaasi waxaa eegaya Xasan Cumar Xuseen. kooxda ka dhisan horyaalka Talyaaniga ee Sassuolo ayaa diiday dalabkii Juventus ee ahaa 30 milyan oo euro oo ay ku doonayaan laacibka reer Talyaani ee Manuel Locatelli iyadoo wadahadal wali ay socdaan labada dhinac. dalabka Juventus ayaa wuxuu heshiis 2 sano oo amaah oo ay sidoo kale ku iibsan karaan, laakiin kooxda Sassuolo ayaa diiday dalabkii ugu horeeyay ee Juventus siday xaqiijisay gool. kooxda Sassuolo ayaa doonaysa iib joogto ah qiimo ku dhow 40 milyan si ay u lumiyaan Locatelli oo shaqayn doona inuu ku biiro kooxda ka qayb galaysa tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda. Kane ayaa doonaya inuu ku biiro Manchester City. weeraryahanka kooxda Tottenham ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu ku biiro Manchester City xilli ciyaareedkan. Harry Kane ayaa rumaysan inuu xoojin karo hamigiisa bixitaan si uu ugu qasbo inuu u dhaqaaqo kooxda Manchester City sida ay qortay Telegraph. Kane ayaa si aad ah loola xiriirinaya inuu u dhaqaaqo Manchester City, balse maamulaha cusub ee Tottenham Nuno Espirito Santo uu sheegay inuu weeraryahanka uu weli yahay ciyaaryahan muhiim u ah Tottenham waqtigan. laakiin qaar ka mid ah xidigaha isku dalka yihiin Harry Kane ayaa rumaysan inuu ka fogaan karo tababarka kooxda ka hor xilli ciyaareedka cusub si uu u xoojiyo heshiiska Manchester City. Bayern kuma laaban doono Tottenham sida waxa yiri Nuno. warbixintaasi waxaa eegaya Xuseen Cumar Xuseen. 32 jirkan ayaa xilli ciyaareedka hore amaah ku qaatay kooxda ka dhisan waqooyiga London, laakiin waxa uu muuqdaa inuu sii joogi doono kooxda Real Madrid xilli ciyaareedka cusub ee 2021-2022. maamulaha kooxda Tottenham ee Nuno Espirito ayaa sii xoojiyay Gareth Bale uusan ku soo laaban doonin kooxda. Gareth Bale ayaa dib ugu soo laabtay kooxdiisa Real Madrid wuxuuna isku diyaarinayaa inuu la shaqeeyo maamulaha dhawaan kooxda loo magacaabay ee Carlo Ancelotti. xidiga heerka caalamiga ee dalka Wales ayaa ku soo biloobay 10 kamid ah 20 kulan oo uu ku soo muuqday horyaalka Premier League isagoo u dhaliyay Tottenham 11 gool. inta ku soo gabagabeynayna wararka ciyaaraha Bulsho Sports TV iyo aniga Aamin Ismaan waxay kaga tageena sidaas iyo nabadgelyo.